Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan maanta ka hadli doonnaa Sheekh Mustafe, sheekha ugu saameynta badan Soomaalida dhexdeeda. Sheekh Mustafe waxa uu ka mid yahay culummada waaweyn ee Soomaalida ku faanto. Waa sheekh saameyn xooggan ku leh bulshada Soomaalida dhexdeeda. Wuxuu wax ku bartay macadka Jarmalka oo ku yaala magaalada Burco. Wuxuu ka bartay xirfadda farsamada korontada. Sanadkii 1980 wuxuu ka qalin jebiyey Jaamacadda Ummadda Soomaalida. Waxbarashada diiniga wuxuu ka bartay culummada Soomaalida. Sheekhu waxa uu ka mid yahay culummada dhifka ah ee isku bartay culumta diiniga iyo maadiga. Waxa uu ku dhashay magaalada Burco xilligii gumaysiga. Waxa uu ka soo jeedaa qoys culummo ah. Aabihii waxa uu ahaa nin culummo ah oo loogu yeedho xaaji. Xitaa awoowayaashiisii waxa ay ahaayeen culummo diinta u shaqeeya. Wuxuu sheegay sheekha in dowladdii dhexe ee Soomaaliya marar badan xirtay. Meel kasta oo dowladdu dadku ku xirto waa lagu xiray. Wuxuu macallin ka noqday macadka uu wax ka bartay ee Burco. Laakiin muddo sannad ah kadib waxaa xirtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre. Mararka qaar wuxuu xabsiga ku jirayay sannado. Weligiina lama geynin maxkamad. Dalka dibaddiisa ayuu deganaa sheekha ilaa sanadkii 1999 kadib wuxuu u soo furay magaalada Hargeysa. Sheekhu wuxuu ummadda Soomaaliyeed la wadaagay muxaadarooyin badan oo boqolaal ah oo duruusyo iyo casharo badan laga faa'iiday. Sheekhu waxa uu ka mid yahay culummada Soomaalida ee ugu xikmadda badan. Waa kuwan xikmado cajiib ah oo laga qoray sheekha. idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay. kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaad haysanin. kuma xidhna inaad madax tahay iyo inaanad ahayn. kuma xidhna inaad cilmi badan tahay iyo inaad cilmi yar tahay. waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeediso, directionka aad u jeedeen raacaysa. ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa? waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya, adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuslaba. xagga naartana intaba waa lagu mari karaa. labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leegtahay. qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtahay. taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda. adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka bixisa. ilaa adduunka adoo waxhaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn.